soo dhawaada asxaabay qiimaha loo yaqaan Amazon waa qiimo baaxad leh oo ku yaala Ameerikada Koonfureed badka ay qiimahani ku fadhiyaan waa 3 milyan oo mayl oo laba jibaaran waxa maalinta ka sii dambaysa lagu arkaya qiimaha sidan u ballaaran waxyaabo la yaab leh oo aanay basharku hore u arag haddaba muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa 10 waxyaabood oo la yaab leh oo lagu arkay qiimaha Amazon ee si daawo muuqaalka intaynaan bilaabin muuqaalka haddaad ku cusub tahay channelka nagu soo biir oo subscribe taabo si aad ula socotid muuqaalada dambe soo galino maska anaconda haddaad ka mid tahay dadka ka cabsada masaska ha isku tagin qiimaha Amazon waayo waxaad kala kulmi kartaa maska ugu weyn adduunka oo loo yaqaan anaconda waa mas dhererkiisu gaadhay 7 ilaa 8 mitir waxaanu culeyskiisu yahay 25 kilogram sida awgeed maskan xajmiga weyn waxa uu kaliya cunaa xayawaanada ay ka mid ka yihiin doofaarada ugaadha iyo xitaa shabeelka webiga biyaha kulul webigan biyaha kulul waxa uu dhererkiisu gaadhaa 4 mayl oo dhiganta 6.4 kilomitir kulaylka biyahan webiguna waxay celcelis ahaan u dhaxeeyaan 740 ilaa 100 degree Celsius kuwaas ay biyuhu yihiin kuwa aad u karkaraya haddaad webigan booqatid oo istiraahid biyaha gacanta gali biliqsigiiba gacanta ay ku gubanaysaa haddaad istiraahid ku dabaalana wax ka yar daqiiqad ayaad ku dhimanaysaa sababta ay biyaha webigani u kulul yihiin waa in webigani ku yaallo meel hoose ay kaga soo dhacayaan biyaha kulul ee buurahan sare ka soo daataa sida awgeed biyaha kulul ee buurahan joog dheer ka soo daataa iyagoo ka kululashaha waxay soo gaaraan goobtan uu ku yaallo webigu Chocolates waa mustalax tilmaamaya farshaxan la yaab leh iyo xariijimo qadiimi ah oo lagu sameeyay dhulka kaymaha Amazon kuwaas oo aan la arki karin adoo ka sarreeya mooyee kaymahan Amazon waxa laga helaa 300 oo kamid ah farshaxanadan aan la garanayn dhammaantoodna waxay ka samaysan yihiin caws lagu fiidiyay dhulka adigoon arki karin markaad hoos taagan tahay laakiin ciddii samaysay iyo micnaha ay u sameeyeen cidna ma oga ilaa maalinka maanta ah raha quraarada weeg ka waran haddaan ku idhaahdo waxaa jira makhluuq la arki karo waxa gudaha jirkiisa ku jira rahan quraarada weeg waxa laga helaa kaymaha Amazon waxaanu leeyahay maqaar sare oo laga arki karo xubnaha hoose ee jirkiisa sida wadnaha caloosha mindhicirada beerka iyo xitaa halbowlayaasha culimaduna ilaa maanta wax macluumaad ah kama bixin rahan quraarada maqaarka leh waxaana jira dawlado badan oo rahan naadirka ah qadariya sida wadanka Colombia oo kale kuwaas oo sawirkiisa ku dhajistay macdan qiyaastii ah 500 oo lacagta pesoska ah Goliath waxyaabaha la yaabka leh ee lagu arkay qiimaha Amazon waxa kamid ah caarada ugu weyn xajmi ahaan adduunka waxay caaradan xajmiga weyn ku nooshahay oo cuntaa shimbiraha miisaankeedu qiyaastii waa 226 gram dariiqada jirka uu qabsataa waa mid gaar ah waxaanay marka hore ku garaacdaa gacmaheeda madaxiisa kadib markuu dhaqdhaqaaqa joojiyo waxay ku marmartaa xuubkeeda cad sidaasaanay ku cuntaa quraanjada rasaasta loo yaqaano noocyada ugu cajiibsan quraanjooyinka waxa kamid ah quraanjada rasaasta loo yaqaano waana nooc laga helo kaymaha Amazon oo kaliya sababta magacaas lagu bixiyay waa xajmigeeda oo aad u weyn waxaana leegtahay qiyaas ahaan rasaasta halka dhererkeedu gaadhay 2 cm iyo wixii ka badan sababta kale ee magaca rasaasta lagu bixiyay waa qaniyadeeda kulul waxaana qiyaastii u dhigantaa in xabad lagu dhuftay oo kale waxaana lagu tiriyaa qaniyada quraanjadan mid kamid ah xasharaadka wax qaniinada ugu qaniyada kulul waxaana ka soo galaysaa kaalinta afraad daraasad lagu sameeyay xasharaadka qaniyada kulul halka shiniduna ku jirto kaalinta labaad laakiin si aad ah u naxin waayo qaniyadeedu ma aha mid suna goodaadada basiliskos waxa loo yaqaanaa goodaadadan green basiliskos waxaanay ku nooshahay kaymaha Amazon waxaanu dhererkeedu gaadhaa 60 cm awoodaha la yaabka leh ay leedahay waxa kamid ah sida ay biyaha ugu dul orado masaafo dheer waqtiga ay ka cararayso xayawaanada cunaya waxaanay qiyaastii biyaha ku dul ordi kartaa 12 kilomitir saacadiiba markay biyaha ku dul socoto waxay isticmaashaa lugaheeda dambe ee dhaadheer iyo dibka dambe ay biyaha ku riixayso lugaheeda dambe iyo dibkeeduna waa ta u sahlaysa inay si fudud biyaha ugu dul orado sida awgeed waxa la barbar dhigaa sida biyaha ugu socoto nabi ciise oo calayhi salaam biyaha si sahlan ugu dul socon jiray waxaanay gaalada u bixiyeen magaca goodaadada masiix geedka soconaya geedkan waxa uu ka mid yahay dhirta la yaabka leh ee lagu arkay kaymaha Amazon sababta magacaas lagu bixiyay waa in xididadiisu fara badan yihiin waxaana uu eegyahay xididada badnaanta caaro oo kale waxa kale oo magacaas lagu bixiyay waa in jiridda geedkani dabcan dhaqaaqayso waxaana go'aya jiridda duugowda ee geedkan ku taala waxaana meel kale oo meeshii ahayn uga soo baxaysa jirid cusub iyadoo jiridda cusubina raadinayso meeshay quruxda fiican ka jirto sidaa daraadeed geedkani waxa uu badbedelaa goobtiisa sidii inuu soconayo oo kale qabiilo degan kaymaha Amazon miyaad islahayd dad ayaa ku nool kaymaha Amazon waa maya haddaba sanado badan ka hor waxa kaymahan deganaa oo ku noolaa qabiiladan waxay ahaayeen kuwii asalka u degi jiray kaymahan waxaana qabiiladan dabar gooyay oo mariyay mustacmaradii reer Yurub
waxaanay qabiiladani wax walba u baahdaan ka heli jireen kaymahan baaxadda leh. gumaystihii reer Yurub ee waqtigaas waxa uu kula hirbadiray qabiiladan kaymahan qaniga waxaanu ku laayay inaanay xaq u lahayn inay ku noolaadaan kaymahan, sidaas aanay ku dabargo'in qabiiladii. waxaana la yiraahdaa holaca iyo dabka ka kaca kaymaha Amazon waxa mas'uul ka ah mustacmaradii reer Yurub. haddaba daawade, webigii biyaha kululaa, rahii quraarada ahaa iyo goodaadadii Masiixi, kii kugu la yaabka badnaa commentiga nagu sheeg. haddaad ka heshay muuqaalkan nagala baqaylin like, haddaad ku cusub tahay channelkana ku soo dhawow oo subscribe saar si aad ula socotid muuqaalada dambe soo gelino.